howlgallada ka dhanka kooxda khawaariijta ah ee la doonayo in dalka looga xoreeyo waxaa barbar socdo ilaalinta sharciga iyo kala dambeynta ciidamada. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa mar walba joogta furmaha dagaalka si sharciga loo marsiiyo askarigii gefgala. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta Galmudug gaashaana dhexe Cabdullaahi Abuukar Xasan ayaa gaaray difaacada hore ee deegaanka Caad ee gobolka Mudug, halka uu kula hadlay ciidamada xoogga dalka ee dhowaan khawaariijta ka xoreeyay. Taliyaha guutada 18aad Kumaandooska Gorgor Gaashaanle Carab ayaa ugu horeyn gudoomiyaha ku soo dhaweeyay deegaanka Caad. madax meel ka sarreeyo la salaaxa ma jirto. gudoomiyihii maxkamadda socdo iyo xeer ilaalintii iyo maxalliga abuukaatayaashii qofkii faldambiyeed galo waxaan la tiigsan doonaa sharciga. looma dhaafi doono, looma cafin doono, يعني lagama yeeli doono, lagama khafiifin doono insha Allah taala. wixii waajibaadka gudoomiyaha u deen doonaa. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta Galmudug gaashaana dhexe Cabdullaahi Abuukar Xasan oo la hadlay ciidamada xoogga dalka gaar ahaan guutada 18aad ee Kumaandooska Gorgor ayaa kula dardaarmay ilaalinta sharciga iyo anshaxa, isla markaana waxa uu ka dalbaday inay u dhimriyaan shacabka khawaariijtu ay dhiigooda jaqaysay 16 sano ee la soo dhaafay. inaad caad qabateen dadka ugu horeeya ku sumcaad waa la soo dhaafay waqtaas caad waa la soo dhaafay weliina waa la sii socdaa oo ayageen ugu sii daba joogaa ayadana waa fikrad waxaan rabnaa intaas marka la soo ciidan hadduu dagaalamayo oo wadooyin ku socdo oo cadow rigsanayo wax badanaa ka dhacdhacaya. askartuna sideeda ma wada sinna. askari mid xunaa ku jira, mid wanaagsana ku jira. waxaan rabnaa maxkamadda ciidamadu waxay u samaysan tahay ciidamada iyo argagixisaday u samaysan tahay. sidoo kale gaashaana dhexe Cabdullaahi Abuukar Xasan ayaa sheegay in maxkamadda ciidamada qalabka sida ay mar walba dul joogi doonto ciidamada ku sugan furmaha hore ee dagaalka. maxkamaddu waxaa loo baahday ciidanka markii la sameeyo maxkamad loo baahday yaa kala dhaca ciidanka, yaa u cadaalad falaya, yaa askari ku xadgudub qabanaya, yaa mas'uuliyadooda qaadaya qaanuuneed. maxkamaddu waxay u nooshahay askari inuusan askari kale ku xadgudbin. waxay u nooshahay askarigu inuusan cadowga ka soo naqan. waxay u abuuran tahay argagixisada iyo awoodaha qaranka Soomaaliyeed ka soo horjeeda inay qabato ay abuuran tahay qaadada. saas darteed maadaama aad askari tahay qaanuunka ku hagaya cidda janjalka u haysa oo haddaad dib yar aragto u dacwoonayso waa maxkamadda. dib yar haddaad aragto qofkaad u dacwoonayso waa maxkamadda. maxaa jira meelaad u dacwooto haddaana lahayn ma shaqay kartid. ciidanku meel ugu dacwoodo haddaysan lahayn ma shaqay karo. maxkamadda ka hortegay. maxkamaddu waxay u daba socotaa inay askarta soo qaata qabato. mudankeerana ay marsiisay u socotaa. waxay u socotaa askari kale ku xadgudba taliyaashu inay inta soo qabtaan u dhiibaan maxkamadda. qoraga iyo dariiskana ay ka reebtaan. maxkamaddana farta ka saaraan, maxkamadduna ay kala buuxdo. ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka ayaa howlgallo sifayn ah ka wada gobolka Mudug, kaas oo hadda maraya meel gabagaba ah. Maxamed Cabdullaahi Cumar, warbaahinta qaranka.